maxaa dhacaya hadday dagaal dhex maraan Imaaraadka iyo Sacuudiga? waxaynu samaynaynaa isbarbardhigaynaa awoodda ciidan ee labadan wadan. marka aad eegtid dhanka milatariga, Sacuudigu 280 diyaaradood ayuu leeyahay oo kuwa dagaalka ah, halka Imaaraadkuna uu ka leeyahay 99 xabo. Sacuudigu waxa uu leeyahay 260 diyaaradood guud ahaan helicopter oo ay ka mid yihiin 34 attack iyo weerar samayn kara, halka Imaaraadku uu leeyahay 247, laakiin qaybta weerarka samayn karta ay tahay 24 xabo helicopter. Sacuudigu wuxuu leeyahay 250,000 oo ciidan military infantry ah, halka Imaaraadkuna 65,000 uu leeyahay. Sacuudigu waxa uu leeyahay 850 taangi oo dagaal ka qayb gali kara, halka Imaaraadku uu leeyahay 340 inta haafkeeda. Sacuudigu waxa uu leeyahay wuxuu ku maalgeliyaa militarigiisa 78 bilyan ayuu ku maalgeliyay, halka Imaaraadkuna uu ku maalgeliyay 18 bilyan. haddaba isbarbardhigga awoodda marka aad eegtid labada dhinac aad ayay u kala fog yihiin, dad ahaanna way kala badan yihiin, dhul ahaanna aad bay u kala weyn yihiin. Sacuudiga waxaad moodaa jasiiratul carab inteeda badan inuu isagu degan yahay, halka Imaaraadkuna ay yihiin qayb yar oo kooban oo laga soo gooyay wadanka Cumaan oo laga soo gooyay oo Ingiriisku ka soo gooyay. marka runtii waa laba awoodood aad u kala fog xagga mabaadi'da lafteeda. marka aad eegtid aragtida bini'aadamka ama muslimiintu ay ka qabaan Sacuudiga, waxay ka qabaan dhul barakaysan oo runtii wax uu hogaamiya xagga siyaasadda iyo diintaba wadamada muslimiinta, halka Imaaraadkuna uu yahay wax loo yaqaano sidii wax basaas oo kale ah. marka xataa aragti ahaan bini'aadamku waxay ka qabaan ayaa aad u kala duwan. run ahaantii 24 saac ayaa Sacuudigu u qabtay Imaaraadku inuu kaga baxo dalka Yemen, wuuna kaga baxay 24 saac kadib markii laga dejiyay 2 markab oo badda xeebta Fujairah ee Imaaraadka ka soo baxay oo Mukalla oo ka mid ah Yemen ku soo xidhanayay. dagaal weyn ma dhex marin, laakiin Imaaraadku markiiba ishiiqaata ayuu noqday wuuna ka baxay meeshii. wassalaamu calaykum.